Wallahi saaxiibayaal marar badan waxaad shar moodaysid baa wuxuu ku yahay khayr. Maxaan kala jeedaa? Aan kuu fasiro. Shalay ilaa iyo maanta runtii suuqa aad buu noogu xumaa. Dabcan waana aragteen baa filayaa lacagta dahabka. Maybe sadabyada qaar inay si fiican ugu shaqeynayso laakiin annaga sadabkeena ICI oo runtii very strong ya oo every single day ku trade gareyn jirnay dahabka. Win rate-keena aragteen. Waxaan qaadanay asbuuc ugu xumaa baa oran karaa muddo 6 bilooda. Inkastoo ay saladan ay aad u yaraayeen oo shalay aan 2 sal qaadanay iyo maanta hal sal oo gabi ahaanba marka la isku daro xitaa aysan 100 baby isku gaaraynin oo 90 baby wax noocaas ah isku hayeen saddexda salba kii maanta xogaa ugu yara weyn 40 baby ah kuwii shalay 20 dhowr baby bay ahaayeen laakiin waxaa ka badnaa trade-yada aan break even ka qaadanay shalay iyo maanta ilaa 4-5 trade way gaarayaan oo mid kasta ugu yaraan 20 iyo dhowr baby soo noo dhaqaaqay midka ugu yar halka qaar maanta 79 baby ay siinayeen haddana break even nagaga soo laabanayeen marka halka waxaa dareemaysaa siduu aad runtii ugu liito suuqa haddaba maadaama ay sidaa tahay weligaa lisma dhibo saaxiibayaal marka suuqan la joogo iyo shaqo kastoo aad qabanaysid waxaan isku taxallujiyay in hadda sida uu suuqu yahay aan la dhiilgarayno oo iyadoo waxa waqtigan lagu jiro still aan trade gareyn karno haddana waxa win rate-kan uu fiicnaan karo dib waxaa ugu laabtay strategy ee gold algorithm oo sadab aad u yar oo simple oo kaliya hal candle bas lagu trade gareeyo only one candle baa trade ka galaysaa kagana baxaysa 1 minute buu noqon karaa 5 ka 3 ga meesha ay ka qaadatid hal candle kaliya trade ka heynaysaa haddaba muddo 6 saacadooda kadib oo kombiyuutarkayga maanta aan dul fadhiyay oo backtesting aan sameynayay bal resultiga ii soo baxay insha Allah isla aragno kadib akoonkayga imaaday MT5kayga aan soo furtay London session bay ahayd dabayaaqadeedii waxaan bilaabay markaa inaan trade gareeyo anigoo markaa aad ugu taxadirayay 30 iyo dhowr door baa ku trade gareynayay lotku ugu weyn isticmaalay waxa 0.02 fiiri waa halkan waan ka tusin doonaa insha Allah lacagta aan sameeyay profitka kulli laakiin execution-kan ay la wada fiiri si real everything aan isku aragno selkan baa halkan ka galay trade-kii koobaad waa win gareeyay alxamdulillah buygan baa haddana isla markiiba halkan liiga siiyay aan ka galay stop loss baa qaatay sababta stop loss-kana ama loss-ka aan trade-kan qaatayna khaladkeeda aniga iska lahaa oo mid aan markii dambe dhan iska ilaalinay waxa ahayd in markaasi aan lotkii aan ku galay kan aan isla kanna ku galay yacni riskiguna isku mid maahan oo trade-ka hore riskiisu aad buu u yaraa stop loss-kayga halkan aan ka galay kanalkan selka korkiisa aan dhiganay laakiin buygan halkan ka galay stop loss-kiisu wuxuu ahaa kanalkan wiiga dheer ee rejection-ka samaystay dabadiisa inaan dhigtay stop loss-kayga taasoo ka dhigna markaan aan dhowr iyo 10 door aan ku khasaar lahaa trade-kaas oo kaliya waxaan ku khasbanaaday marka maadaama trade-kii galay oo mataqaana aan buy iri oo isku gareey inaan maaragtay baadiyadan kanalka baadigiisa inaan imaado stop loss-kayga soo waa lagu soo laabto waa laga saaray saa arkaysay stop loss-kayga saxda suuq uma gaarin trade-ka sida tahay uu baxay oo kaliya saa arkaysay all the way ilaa hadda ma soo laaban suuq laakiin stop loss-ka aan meesha khaldan dhigtay ayaa keentay in laga qaado kadibna suuqu sii baxo kasoo gudub trade-ka waa stop loss-ka koobaad aan qaatay 8 trade baan qaatay waa isla arki doonaa kow stop loss-kii koobaad waa kaasa kan weyn buu ahaa trade-kan uu imo buygan baa halkan ka galay one candle fiiri dhan buygi labaad baa haddana halkan ka galay one candle dhan saa arkaysay okay halkan maxaa ka haystaa 1 2 3 4 trade baa halkan ka haystaa 4 kale inoo dhimo kan stop loss waa qaatay stop loss nadiif baa qaatay waa halka stop loss ee saxda ah aan qaatay waa selkana halkan ka soo galay waliba fiiri kan xitaa waa manage gareyn kare sababtoo ah kanalku selka waa ii baxay laakiin waa igu soo laabtay roona waxa markaa ka fikiray sida arkaysa stop loss waa laga saaray anyway waa trade-kii shanaad markaa soo soco marka area-dan oo dhan wax trade kama jirin halkan baa markaa fursadii ugu horeysay haddana aan ka helay waa NY session sida arkaysa buygan baa halkan ka execute gareeyay dhan sida arkaysa waa ka baxay waa weyn gareey haddana isla markiiba halkan buy laga siiyay isla halkan isagana uga baxay saa arkaysa dhan isagana waa weyn gareey xaggani ma haddana buygan halkan ka galay dhan haddana halkan dhal waa ka baxay selkan haddana halkan ka soo galay markuu kanalkan soo taangareey dhan isagana fiiri meesha uga baxay suuqu waxa weeye kanalka buyga uu ka sii baxay inkastoo hadda weli selka uu sii daadanay laakiin kaliya waxa weeye yacni sadabkan oo dhan baa wuxuu yahay kaliya halkaa kanal ka faa'iidayso isagana dhan sida arkaysa taasoo ka dhigan 8 trade oo aan hadda waxa weeye tijaab ahaan aan u sameeyay oo akoonkayga aan ku qaatay sida arkaysaan 6 ka mid waa weyn gareey lacagta aan sameeyay markaan isla fiirino halkan markaa imaano fiiri waa kuna trade-yadii mid waxaan ka sameeyay 5.78 kulli fiiri taariikhda waa isla maanta iyo saacadda oo fiiri halka trade minus ugu weyn aan galay 7.4 waa trade-kan weyn kan ay nii sheegay stop loss-ka aan ku lahaa riski xoogan baan ku galay kan fiiri 3.81 4.22 28 baan kala jeedaa 6.36 waa isagana waa stop loss-kan labada kaliya aan galay okay 6.98 6.48 saa arkaysid 2.92 dhammaan trade-yadii 8 waa kaas haddaba maanta kaliya profit intee leeg baan sameeyay waxaad tegi doonaa time-ka right click baa leenahay custom period baa leenahay kadibna halkan saa arkaysa waxaa iga dooran 18 February ilaa 18 kale waa arkaysaa soo ma okay baa leenahay marka haddaba aan isla fiirino profitka you can see saaxiibayaal $22.91 waxaan adiga ha yareysanin waxaan ha yareysanin adiga saaxiib waxaan oo la isku dardaray $3 $4 waxa weeye $5 oo isku darsatay big profit aa kuu soo baxay imagine akoon $30
oo aad ku samayso waxa weeye aad hal maalina $22 aad ku kordhisay adoo tradeyadan simbalkaa qaadanaya ilaahay baa runtii maada iskale marka hadda inaa fahanteen baa umaleeya ujeedkii aan muuqaalka kow aan kusoo bilaabay oo ahaa waxaa shar moodaysid baa mararka qaarkood khayr kuu noqonaya hadda haddii aanan khasaarayaasha iyo birigifanada aanan qaadan lahayn dee sidaabkan runtii cajiibkaa waqtigan sidan u macaanay sidan u shaqeynaya murreedkiisa uu xoogan yahay imaanu soo bixi lahayn ilaahay baa maada iskale maalmaha soo socdan insha allah isagaa ku tiraad gareyn doonaa resultigana waa sii arki doonaa hadduu ilaah yiraahdo weligaan haddii aad trader tahay ha isdhiibin markasta suuqa sida uu yahay ula dhilgare xalkana raadi muuqaalka intaas ku egaya saaxiib yaal nabadgelyo